cabsi kaamiradan ba anigu hadda ka baqaa markaan buujigiisa arko labada telefoon ba asaa qabanayo laba telefoon ay haysataa mid oo ay ku isticmaasho Facebook iyo mid local ah hadii la soo waco fiskana amar ay ka qaadanay ma qaba karaa please telefoonkan ay dhahay ka waran idik xulug xuno jamiisle oo hoos u bax ah oo saa aragteen u eg oo sixiroola ah hadii farxii fiska ka waran ay telefoonkayga ma qaba karaa ay leedahay ka warama bawarkaas muxuu yahay bawarkaas marka waxa waaye fiska insha Allah ilaahay wandhay waa ka soo furfura ayaduna sida qof kasta oo farxiye fiska shalay ma dhalanay wajigeeda yaqaanayna ama yaqaanay farxiye fiskana indhaheeda bisa fiiriyo farxiye fiska markay la soo galo ma aragtay TikTok iyo Facebook iyo markuu meelaha wadwado farxiye wajigeeda bis fiiriya indhaheeda bis fiiriya asagana wajigiisa si fiican u fiiriya wajigiisa caad baa ka sokeeya caad waxba ka sokeeya cunuga wajigiisa gabadhayda baa la yiri way xanuunsan tahay gabadhaydu ma xanuunsana Facebook iyo page beenana waa nala ka samaystay oo leeyahay asagoo waji loo xale waji alwaax waaxid ayaan ka arkay Facebook ma ogta marka muuqaalkaas aad ciil iga hayay hala baafin gabadheeda xanuunsan tahay marka xukumi jiraan dadka Facebook-yada leh farxiyaha xanuunsan malihin anagu bijijka لو ناكتي دنبيغيدا دوشا iga saariyana anaguna ma lihin waxa ka sokeeya cabsi kaamiradan ba anigu hadda ka baqaa markaan buujigiisa arko ayada soo ma ahan inay taagan tahay qaadan tahay waa u jeedin oo maqan tahay marka waxa waaye sixir quraana ka adag asaga soo ma ahan wuxuu geystay asaga naasnaasayano kasta oo raba fiska inuu ka hadlo qof kasta oo raba inuu farxiyo fiska ka hadlo walaalayaal idinkoon farxiyo fiska habaarina idinkoon cudur xun u saadina runta ka hadla farxiyo waa taagan tahay waa sixran tahay cunugu geedaynta uu yaqaanaa marka wax jira inaad ka hadashaan Soomaaliya waxa ka jeceshiin waxaan jirin iyo habaar iyo been abuur inaad sheegtaan aya been abuurka iyo habaarka iyo cudurrada xun iyo oo been ah inaad sheegtaan aa ka jeceshiin inaa waxa jira ka hadashaan war hadday ma aragtay abtayd aad u haysaan oo aragtaan fiska ka hadashaan ana hadda idin sheegayo cid aan iga dambaysaa weydiinina dadkii ayada ka horeeyay ee uu taagay oo ma aragtay ilaahay ka soo badbaadiya aniga ila soo xiriireen ayaan hore anigoo iskaga aamusay because familkayga igu dhahan intaas ka badan farxiyo ma aragtay faraha ka qaad walaashaa waaye si kastoo wax u jiraan si kastoo wax loogu sameeyay adiga waxba kama qaban kartid iskaga aamusa la igu dhahay laakiin de qofku markuu walaalkaayo jirkaagiyo dhiigu biyo ma ahan ana reality-ga og I know reality-ga marka akhbaarta ninkaas aniga ayadoo tafatiran oo dhameystiran farta layga saaray meeshan ku yaabayaan fadhiya aniga waxa sixirka la dhaho horta ilaahan ka magan galnay waxna sixray iyo waxna taaganay ilaahan ka magan galnay qof walbo adkaar la'aan isku bixin haddana waa idin sheegaya qof bili aadan ah isku aaminina dadka aad la enjoy gareynaysaan iyo dadka baranaysaan ka fiirsada waxaan idin sheegayaa Soomaalida farxiyo fiska la yaaban ama ku mashquulsan akhbaarteeda aniga iyo familkeeduba waa ka dhareegsanahay waxa jiro waa ognahay ninkaasu inuu ma aragtay geedaynta yaqaano adeegtay waa ognahay marka de waa inta uu haysan karo oo ma aragtay uu farxiyo ay u taagnaan karto waa iska waqti yar waay dadku ayada ka horeeyay uu taagayba ilaahay waa ka furfuray marka wanda ilaahay waa ka soo furfuraya inay arintaas jirtana cid aan weydiinayo male sababta oo ah telefoonadeedii gabadhaas telefoonadeeda xataa gacantu ku haystaa telefoon asaga ansar uu dhaho ma ee telefoon kale farxiyo ma ansari karto asagaaba qabanayo horta ayada ma ansari kartaba telefoonkeeda asaga ansarayo asaga qabanayo hadda wacdo asaa ka qabanayo labada telefoon ba asaa qabanayo laba telefoon ay haysataa mid oo ay ku isticmaasho Facebook iyo mid local ah labadaba asaga qabanayo hadii la soo waco fiskana amar ay ka qaadanay ma qaba karaa please telefoonkan ay dhahay ka waran idik xulug xuno jamiisle oo hoos u bax ah oo saa aragteen u eg oo sixiroola ah hadii farxiyo fiska ka waran ay telefoonkayga ma qaba karaa ay leedahay ka warama bawarkaas muxuu yahay bawarkaas marka waxa waaye fiska insha Allah ilaahay wandhay waa ka soo furfura ayaduna sida qof kasta oo farxiyo fiska shalay ma dhalanay wajigeeda yaqaanayna ama yaqaanay farxiyo fiskana indhaheeda bisa fiiriyo farxiyo fiska markay la soo galo ma aragtay TikTok iyo Facebook iyo markuu meelaha wadwado farxiyo wajigeeda bis fiiriya indhaheeda bis fiiriya
asagana wejigiisa si fiican u fiiriya wejigiisa caad baa ka sokeeya caad waxbaa ka sokeeya cunuga wejigiisa waxbaa ka sokeeya cabsi kaamiradan ba anigu hadda ka baqaa markaan wejigiisa arko ayada soo ma ahan inay taagan tahay qaadan tahay waa u jeedin oo maqan tahay marka waxa waaye sixir quraana ka adag asaga soo ma ahan wuxuu geystay asaa ka naasnaasayano he will pay the price gabar reer dhaleen oo dad dhaleen intaad taagto oo aad ku soo xirato guri oo teleefoonadeeda ka qaadato asaas oo la dhaqanto oo waa qaba aad tiraahid ka bacdina oo arki doontaa tafaafulow aan arkay oo farxiyo la soo duubay oo uu ag fadhiyo oo hadlaayo marka ilaa ninkan wariyaha ah akhbaartiisaaba ka horreysay oo dadkan galay oo been ka sheegayo cudur ay qabaan iyo balaayi iyo wax ilaahay laga magan galo marka waxaan u sheegayaa qofka hallo snapchat wallahi billahi tallahi Soomaali ma aragtay Soomaali koodi joogay tuulo koodi joogay magaalo koodi joogay qurbaha waaba isla wada waasheenbano saaqadii meel qaldan bay gasho waxaan leeyahay cunuga wajiga loo xalaayo waxaan arkayaa dhahayo gabadhayda waa xanuunsan tahay baa la yiri way fiican tahay gabadhaydu meelna ma xanuunayso marka ani clipkan Facebook ku arkay ee iska soo duubeen asaga iyo farxiyo laakiin ileenay waxay u jawaaboyaan nin guriceel joogo oo wariye iska dhigdhigo oo dhihi jiray ratiga hashu ratiga way dhunkanaysaa iyo sagaara aadaantay iyo ninka qaabka daran oo dhididsan 24/7 oo wasaqdu ka muuqato ciyaal suuqa oo reer baadiyaha ah ninkaasaa been abuur ka sameeyay ilaahay amarkiis clipka ayaga ay iska soo duubeen oo Facebook ay soo dhigeen uu dhahayo gabadhayda baa la yiri way xanuunsan tahay gabadhayda gabadhaydu ma xanuunsana Facebook iyo page beenana waa nala ka samaystay oo leeyahay asagoo weji loo xale weji alwaax waaxid ayaan ka arkay Facebook ma ogta marka muuqaalkaas ciil iga hayay assalaamu calaykum aadaan idin salaanay Soomaali weyn meelba joogtaan هذا xogaa teleefanadii jam garoowo hala baafin gabadheeda xanuunsan tahay marka waxay ka mid jiraan dadka facebookyada leh farxiyaha xanuunsan malihin anagu bijijka waxa kaloo aanan lahayn channelka farxiya fiska ay ku qoran tahay ee beenta ama cayda la soo dhigo malihin qof walbo aqli leh wuu garan karaa qof mas'uul waxa uu ku hadlo channel kan kale page kan kale ee la soo dhigo loo naagteeda dambigeeda dusha iga saariyeen anaguna malihin wadad wada waalan gabadheeduna caafimaad qabtaa way salaamo dhamaanad Soomaali meel kasta joogtiin horna waa aragteen asoo aniga isakeediga dhahay ninkeyga isbitaal ku jira loo soo duceeyo marka Soomaaliya da aqli leediin oo maskax leediin waa dareem kartiin waa fahmi kartiin ma fahamto qof walba maalin dhimanaysa qof walba maalin nafta laga qaadaya aniga hore la soo dhaaway dhimatay marka inay ku qaraabanayaan dadkaas waa iska fahmi kartiin qof walba maalin uu leeyahay dhimanaya iyagana waxaan leenahay waxba si walba oo hadashaan si walba tiraadana xanuunsantiin iyo si walba wax sheegtaan kaliya yaraan soo dubna umba idin ku filan aad baan idin salaaminaa